Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhaqdhaqaaq aad u xooggan oo ka soconaya toga Laashimo ee hoos yimaada deegaanka Carmale ee gobolka Sanaag oo 2 maalmood ka hor ay ka dhaceen dagaallo aad u qaraar oo qaatay muddo 2 maalin ah kaasoo sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa halkaasi ka soconaya iyo sidoo kale gurmadyo kala duwan oo ay helayaan labadii maleeshiya beeleed ee halkaasi ku dagaalamay. Halkay maraysaa waanwaantii ay wadeen waxgaradka iyo sidoo kale isimada dhaqanka ee gaaray deegaanka Carmala si ay markaasi u xaliyaan xiisadii ka taagnayd toga lagu magacaabo Laashimo oo dad badan markaasi ay ku geeriyoodeen. Weli waxaa isu soo taraya dhinaca kale baaqyada loo diraya dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya iyada oo qaar ka mid ah isimada dhaqanka ee dowlad goboleedka Puntland ee ku sugan magaalada Garowe ay baaq u direen dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya si xiisada loo joojiyo dhiigga dadka walaalaha ah ee daadanayana loo istaajiyo. Soo dhawow muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo sida aad u aragto. Waxaan kula wadaagi doonaa inta tobintan aynu ku guda jirno guud ahaan wixii kasoo kordhay xiisada gobolka Sanaaga. Hagaag sida aad la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyayba gobolka Sanaag waxaa ka taagneyd xiisadii xasrado colaadeed oo u dhaxaysa dhinacyo kala duwan oo ku loolamaya gacan ku haynta guud ahaan gobolka Sanaag, waxaana si weyn markaasi loolanka ugu dhaxeeyay maamulka Somaliland maleeshiyadu taageeraya ciidanka difaaca deegaanka ee beesha Warsangeli sidoo kale maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyadoo dhanka kale Puntland ay loolanka markaasi qayb ka tahay. Horey siyaasiyiin mas'uuliyiin ka tirsan maamulka waqooyi bari iyo saraakiil ciidan oo maamulkaasi ayaa digniin u diray maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland waxayna u sheegeen in dhowaan lasoo gabagabayn doono joogitaanka labadaasi maamul ee gobolka Sanaaga iyada oo abaabul iyo dhaqdhaqaaq aad u xooggan ay wadeen dhinacyada halkaasi ku loolamaya ayaa waxaa markaasi dagaal 2 maalmood qaatay oo dad badan ay ku nafwaayeen uu ka dhacay toga Laashimo ee hoos yimaada deegaanka Carmale ee gobolka Sanaag kaasoo u dhaxeeya 2 maleeshiya oo kasoo wada jeeda beesha Warsangeli. Dagaalka 2 maalmood qaatay ayaana waxaa ku geeriyooday dad kor u dhaafaya ilaa iyo 35 qof halka dhaawacana uu gaaray markaasi ilaa iyo 25 qof oo dagaalkaasi ku dhaawacantay. Dadka ku geeriyooday dagaalkaasi waxaa ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka Laashimo ee gobolka Sanaag, waxaana ugu horeeya gudoomiyaha deegaanka Laashimo oo isagu ka mid ahaa raggii ugu horeeyay ee ku baxay colaadaasi inay kala dhex galaan labada maleeshiya beeleed, laakiin isaga ayaaba markaa ku geeriyooday dagaalkaasi sida wararka ay tilmaamayaan iyada oo markaasi dhinaca kale ay ku baxeen isimo dhaqan oo beesha Warsangeli kasoo jeeda. Saraakiil ciidan oo hogaaminaysay ciidamadii ku sugnaa deegaanada Waqdariye Shidan iyo Yube ayaa waxaa lasoo warinayaa inay ku guuleysteen xiisada ay dejiyaan, laakiin waxay gabi ahaanba markaasi ku fashilmeen inay hor istaagaan gurmadyo kala duwan oo ay helayaan labada maleeshiya beeleed ee halkaasi ku dagaalamaya. Dadka badanna markaasi iska laayay dagaalkii 2 maalmood qaatay ee dhex maray labada dhinac ee halkaasi ku diriraya. Sida xogaha ay tilmaamayaan labada maleeshiya beeleed ayaa 48 saac ee lasoo dhaafay waxa ay heleen gurmadyo kala duwan oo gaaray labada dhinac kuwaasi oo u muuqda inay dab ku sii shidayaan xiisadii hore halkaasi ugu taagneyd iyadoo dhinaca kale dadaallo xooggan ay wadaan isimada dhaqanka waxgaradka iyo saraakiisha ciidamada beesha Warsangeli kuwaasoo doonaya inay si degdeg ah xal nabadeed uga gaaraan xiisada. Marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada iyo dadaalada nabadeed ee soconaya waxay u muuqataa in markaasi weli aan la gaarin halkii loo baahnaa maadaama ay dhinacyadu weli helayaan gurmadyo kala duwan oo gaaraya si dagaalka markaasi ay u sii wadaan. Gobolka Sanaag ayaa waxa uu martigelinayay muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu cuslaa iyadoo dagaalkii ugu dambeeyay ee labada maleeshiya beeleed ku dhex maray toga lagu magacaabo Laashimo ee hoos yimaada deegaanka Carmala oo 75 kiiloomitir u jirta magaalada Cerigaba ee xarunta gobolka Sanaag ay ka dhigan tahay in gobolka Sanaag uu markan cagaha la galay dagaal aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono. Waxaa socda dhinaca kale isla markaana isa soo taraya oo si xawli ah ku socda baaqyada nabadeed ee loo dirayo dhinacyada halkaasi ku dagaalamay labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana baaqyo kala duwan diraya isimada dhaqanka ee geyiga Soomaalida iyo sidoo kale dunida daafaheeda ku sugan. Isimo iyo odayaal dhaqan oo ku sugan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa maanta waxa ay baaq nabadeed u direen dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka lagu magacaabo Carmala toga hoos yimaada ee Laashimo, waxayna ugu baaqeen in si degdeg ah oo shuruud la'aan ay nabadda ku qaataan dagaalkana lagu soo afjaro
casharna ay ka bartaan dagaalkii labada maalmood qaatay ee dadka badan markaasi ay isaga laayeen. Isimada dhaqanka ayaa waxa ay markaasi ugu baaqeen in dhinacyada halkaasi ku loolamaya dagaalka ay joojiyaan, maadaama waxa keliya dagaalka laga dhaxlo uu yahay dhimashada wiilal badan iyo sidoo kale in markaasi faqri iyo abaaro aan dhammaad lahayn markaasi uu wajaho deegaanada dagaalada qabaa'ilka ay ka socdaan, isagoo tusaale u soo qaatay deegaanada markaasi kala ah ka tirsan maamulka galmudug ee Cabudwaaq iyo sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah gobolka Mudug oo ay aafeeyeen dagaalo qabaa'il. Waxaana sheegay in dhulkaasi gebi ahaanba u martigelinaya abaare iyo sidoo kale duruufo nololeed oo aad u adag, maadaama uu saaxiib la noqday dagaalada qabaa'ilka iyo dilalka dadka aan waxba galabsanin. Waa kuwan qaar ka mid ah isimada oo baaq nabadeed u diraya dhinacyada ku dagaalamaya toga Laashimo ee hoos yimaada deegaanka Carmala ee gobolka Sanaaga. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaalaha dirirtu ay ku dhacmada gobolka Sanaag oo labada beelood oo walaalaha ah, waxaan u soo jeedinaynaa baaq nabadeed. Waxaan leenahay dagaalka walaalayaal joojiya. Dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. Arrinta labaad waan idin sheegay waxay tahay wuxuu dagaalku leeyahay marka ugu horeysa faqri, wuxuu leeyahay barakac, wuxuu leeyahay naar, inaad naar ku gashaan oo ku baabadaan naarta ku tagtaan. sidaa darteed waxaan ku talinaynaa inaad joojisaan dagaalka. saasaan idinkula talinaynaa, idinka intaasaan leenahay. waxaan kaloo aan leeyahay u soo jeedinayaa dadweynaha muslimiinta ee Soomaaliyeed, culimaadudiinka, waxgaradka, dhaqanka iyo cid kastoo waxgaradiba oo nabadu ay dagaalku danqaayaba inay ka qayb qaataan dagaalkaas sidii loo joojin lahaa, inay ka qayb qaataan. taasna sidaas baan leeyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha looga cabsado dhibaatada halkaa ka dhacday cidda ka horisay iyo cidda ka shaqaynaysa. waxaan leenahay arrinta hala joojiyo, cadaab aakhira laga mudanayaa, bilihii xurmada lahaabaa lagu jiraa. bilahan dagaalka kufaar Quraysh ma dagaalami jirin, bilahan carabtii jaahiliga ahayd bilahan dagaal lama sidi jirin. ninka aabaha dilay hadduu caawa kuu soo hoydo ninka waa la badbaadin jiray. innagoo muslimiin ah oo diinta islaamka muddo ku haysanay oo cilmi diimeed la bartay, in maalin walba bilihii xurmada la haystaa loo dagaalamayo masiibada Soomaaliya haysataba bay ka mid tahay. waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo, bilaha xurmada la hala ixtiraamo, dagaalkana hala joojiyo, intaan simadan warkoodana hala maqlo. arrintaasna haddii awal hagrasho jirtay dee maanta si dheeb xoog leh ha loogu kaco, oo cid kasta oo ama wax hagrasho ku jirtay ama aad hashaasi si kale wax dibindaabiyeynaysa arrintaa ha loo kaco intaay ka sii badan. waxaana leeyahay waqti adagoo abaara oo dhaqaale xumo jirto oo ay xaaladuhu adag yihiin ayaa lagu jiraa. si degdeg ah arrintaa wax looga qabto. arrintaas waxay isugu jirtaa baaq iyo tacsi. ugu horeyn waxaan ka tacsiyeynaynaa intii meesha ku dhimatay. ilaahay waxaan leenahay ha u naxariisto, ilaahay naxariista lagama quusto. wixii dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo. waxaan leenahay labadaas beelood oo walaalaha ah oo shaydaan ka dhex shaqeeyey, ilaahay waxaan leenahay ha kala qaboojiyo arrintooda. baaqaan u diraynaana wuxuu yahay inaan arrintaas intaasina ay wax dhaafan. waxgaradka, odayaasha, cuqaasha, dhalinyarada, dumarka kulli dhammaan in arrintaa ay u istaagaanin oo intaasina ay waxna ku dhaafan. qofka nool ayaa inoo ka baahan talo. qofka dhintay hadda waa tegey, talo uma baahna. qofka nool baa talo u baahan. marka intii dhaawaca ilaahay ha uga dhayo. waxaan ka codsanaynaa waxgaradka labada dhinac. waa qiyaasayaa in wax badan oo wanaa ka shaqeeya inay jiraanin. dadku ma wada xuma inay arrintaas u taagaan labada dhinacba, gacmahana qabtaanin, halkaasna ay waxna ku dhaafin. intaynu isku soo gaarayno aad iyo aad baa u mahadsantihiin. guud ahaan wixii kasoo kordha xiisadda iyo dhaqdhaqaaqyada gobolka Sanaag ka soconaya wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. muuqaalka like sar aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo.